wax soo saarka loo guntaday haday tahay calafka xoolaha iyo haday tahay wax soo saarka dadkaba ku soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waxaan raacsanayaa kale wax qabadkii aad qabateen waa kaas oo waa muuqda ilaahayna rabxadiisa ku shub dhaamamku waa 3 dhaamkan iyo dhaamka kooraha labada waa la dhooba qaaday waxaan codsanaynaa hadii ilaahay idmo oo amarka ilaahay ka dhigo in hadii alla ka dhigo biyaha tagaya aanu qabanno aad u qabataan mashruuca dhaamamka laba inta la durkiyo la weyneeyo balaastig la dhigo si ay u san tirsadaan sidaana weydin ka rajeynana taabkiinu horena waa ka ku soo dhawaada gobolka iyo mashruuca ku soo dhawaada iyo degmadan aynaba ku soo dhawaada aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa kulay taab badan iyo shaqo badan runtii ayaa aad la qabtay mudane agaasimi hadii aan xogay yar ku yara noqdo runtii meeshan mashruucan 3 sano ayuu socday 3 sano oo sanadkii ugu dambeeyay kulay imka marayno halfkiisa aan marayno runtii labadii sano horeba waxay ahayd shaqo adag iyo hadana wax soo saar la'aan bay noo ahayd runtii oo ay duruufka ahayd xilliyada xaaladda abaareed ee ka taagneed runtii jirtay runtii waxaan garanayaa dhulkaan markaan nimaadno dadka lagu dhiirigelinayo oo runtii siigada iyo runtii kuleylka ka jiray runtii ay aad iyo aad u darnayd waxa maanta farxad noo ah inaynu joogno deegaankii Jaleelo oo runtii tacabkii bulshadu ay gelisay mashruuca wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda FAO ay iska kaashanayeen ay geliyeen inay maanta muuqato gudoomiyaha gobolku waa inala joogaa marar badanna runtii deegaanka waynu marnay ilaahay xamdigii dadka waxa ka maqnaa diyaar garow sanadka maanta tacab badan bay galeen hay'addu way ka qayb qaadatay oo markay ugu yar tahay dhiirigelin runtii aad u weyn bay siisay labadii sano ugu dambeeyayna waxa loo diyaar garoobay in hadii raxmaadku ilaahayna siiyo inaynu si wanaagsan uga faa'iideysano marka raxmaadkii ilaahay wayna siiyay dhulkii runtii maanta waad arkaysaan oo waa barwaaqo calafkii xooluhu aad iyo aad buu baxay waxaynu diyaar garoobaynaa imika hadii alla idmo qorshaha labaad oo ah in la goosto oo calafka xoolaha la gooyo oo kayd la dhigto oo maxaan ku yiraahdaa mishiinada iyo goobtan horumarinta calafka xoolaha ee deegaanka ka dhisan ay noqoto goob calaf xoolaad soo saarta hadii ilaahay